inaan comment ku darsado si ay u cadaato maadaama xafiiska xeer ilaalintu dacwaddu oogayo si waafaqsan qodobka 163 in ay muhiim tahay ama shardi tahay filka meesha ka dhacay qodobada eedeysanayaashu si iskugu xidhan yihiin waxaan rabaa madana gudoomiye adeega waynu isla waafaqsanahay ama way caddahay qodobka 241 oo ah xatooyo xoolo dadweyne in uu soo gelayo qofka lacagta qabanaya iyo qofka adeega bixinaya inay si siman u soo wada gelayaan markii elementiska qodobka la fiiriyo waxaan rabaa markaa eedeysanayaashan maxkamadda hortaagan oo xafiiska hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ka socda seebay u soo galeen dokumentiyada wadana gudoomiye waxaan haynaa dokumentiyo xafiiska xeraaliyaha guud ee qaranku baaritaankiisa uu ku soo cadeeyay inay been abuur yihiin dowrka ay ku leeyihiin baan rabaa inaan sheego qofka ajnabiga ah ama shirkadda uu shaqeynayo qofkan ajnabiga ah marka uu soo codsanayo fiisa kordhinta 3 bilood 6 bilood hal sano kii ay doonto ha noqoto dokumenti baa degan oo ah habraaca uu hay'adda u degan inuu soo buuxiyo waafaqsankii aan maanta dhaweyd ka sharaxnay ee ahaa work permit-ka tusaale ahaan qofkaas shirkaddii codsigeedii baasaboorkiisii sawirkiisii warqaddii caafimaadka shahaadooyinkiisii CV-giisii wama ila dalika marka hay'adda immigration-ka la yimaado shaqada waxaa laga soo bilaabaa xafiiska koobaad oo fiisa ablayga ah meel oo waa la arki doonaa maxkamaduna si waafaqsan 118 wixii cadeymo aanu halkan keenno way xaqiiqsan doontaa oo ay ka mid tahay systemka hay'addu yaala xafiiska koobaad ee laga soo bilaabo qofku wuxuu soo istaagayaa ajnabiga ama qofka ka socda ee wakiilka ka shirkadaas daaqada ayuu soo istaagayaa dokumentiyadiisii ayuu soo gudbinayaa dokumentiyada marka hay'adda loo dhiibo sarkaalkaasi shaqada koobaad ee ugu muhiimsan ee dokumentiga loo dhiibay xalal waxa loo dhiibaya sarkaal daaqada fadhiyo waa dokumenti qabta ah muxuu yahay toga tirsan hay'adda socdaalka jinsiyadda u fadhiya yacnaha xafiiska hay'adda qaybta fiisa kordhinta waaxdaas ka tirsan yahay shirkadu dokumentiga u qabanaya dokumentiga xafiiska loo gudbinayo ee ka ku xiga waa xafiiska diiwaangelinta hubinta shirkadan qofkan ajnabiga ah ka socdo shirkad dalka ka diiwaan gashan ma tahay mise ma aha ayaa la hubinayaa marka dokumentiyadii loo barbar dhigo ama qofkii doonaya iyo baasaboorkiisa iyo wixiisa la xareeyo oo loo ogyahay qof dalka markii hore sharci ku soo galay ilaa fiisa kordhinta waxa la qaataa qof markii hore dalka intuu sharci ku soo galay fiisa hal bil qaatay oo halkii bil ka dhacay marka ka bacdi uu qofku u baahanaya fiisa kordhin yaani qof markii hore dalka sharci ku soo galay shirkad si sharci ku shaqeynayay buu u shaqeynayay ma aha macnaha oo hubintu muhiimka ah waa taas marka la diiwaan geliyo dokumentigaas waxa loo gudbiyaa dokumentigii xafiiska verification-ka hubinta ama xaqiijinta dokumentiyada xafiiska waxa mas'uul ka ah sarkaalka lagu magacaabo Saabir Xasan Cabdinuur xafiiskaas waxa mas'uul ka verification-ka Saabir Xasan Cabdinuur baa mas'uul uga ah hay'adda qaybteeda fiisa kordhinta ama waaxda ajaanibta marka uu dokumentiyadaas sarkaalkaas hubiyo waxa uu gudbinayaa approval-ka oo ah in dokumentigan ma loo ogolaan karaa inuu lacagta fiisaha maadaama fiisu dalbanaya inuu lacagta fiisaha iska soo bixiyo iyo inuusan iska soo bixin ganaaxyo ma lagu waxyaalo badan baa la hubinayaa oo approval-ka waxa mas'uul ka ah agaasimaha waaxda iyo ku-xigeenkiisa waxa mas'uul ka ah oo hay'adda u qaabilsan agaasimaha waaxda iyo ku-xigeenkiisa halka marka ay maraso ayaa qofkii waxaaba la qaatayba inuu lacagta soo bixi la dhaho warqadii waxa la siinayaa ogolaanshaha iska soo bixi lacagti waa lagu ogol yahay inaad fiisa qaadato waxa uu tagayaa wasaaradda maaliyadda iyo bangiga systemkaas maadaama aysan hadda kiiskoodii ahayn sida uu tagayo markuu ka soo dhamaado waxa uu soo qaadanayaa boonada lacag bixinta ayuu soo qaadanayaa boonada lacag bixintu lacagta ku soo bixiyay ayuu soo qaadanayaa koow haddana ka soo bilaabaya daaqadii buu soo istaagay dokumentiyadiisa la soo gudbinayaa xafiiska verification-ka uu imaanaysa mar labaad ba xafiiska lagu soo noqonayaa oo la hubinayaa qofkan lacagtii ma soo bixiyay xafiiska verification-ku oo Saabir joogo wuxuu u dirayaa qaybta diiwaangelintu dib ugu celinaya lacagtan in la bixiyay soo diiwaangeliyo dhahaya dayib mudane gudoomiye marka la soo diiwaangeliyo
waxay u soo gudbaysaa documentigii approvalka oo ah meesha uu joogo Cosoble iyo Cumar Macallin Cali ay joogaan oo ah agaasimihii waaxda iyo ku-xigeenkiisii documentigu halka marka uu yimaado oo uu hubiyo oo waxa dib loogu celinayaa qaybtii diiwaangelinta waxay daabacayaan warqadii approvalka iyo warqadii shirkadda qofkani ka socday oo uu ku doonayay macnaha baa la isla daabacaya labadii warqadood ba approvalka dib loogu soo celinaya waxa saxiixaya agaasimaha ama ku xigeenkiisa hadba kii shaqada markaa jooga ayaa saxiixaya halka marka ay marayso warqadii la saxiixo ba waxa loo gudbinayaa xafiiska fiisa technical aadan joogo hadda eedeysan aadan xafiiska uu joogo ayaa loo gudbinayaa warqadii marka warqadii loo gudbiyo oo aadan arko warqadii inay approvalka uga timi saxiixii ay wadato habraaciina ay soo martay aysan dusha uga soo boodin wuxuu ku dhufanayaa fiisa technical mudana gudoomiyaha hadaba marka inta leeyla fahmo halkan waxaan ku hayaa warqad waxa saaran fiisa kordhin $400 waa 6 bilood dabcan maadaama sanadku 800 yahay $600 baa saaran aan si kooban u dhaho qofku markuu lacagta soo bixiyayba oo dokumentiyadiisii la xaqiijiyay wasaaradda maaliyadda warqadeeda waxay soo maraysaa verificationka uu saabir joogay waxay kaloo maraysaa approvalka uu joogay labada agaasime ay joogeen Cosoble iyo Cumar ay mas'uulka hay'adda dawladda uga ahaayeen waxay ku dambeynaysaa warqadan lacag bixinta oo arkaya aadan warqadaas hadda qaybo badan oo kamidana maxkamadda waan la wadaagnay dabcan hadii kamaradu si wacan u qabanayso waa la wadaagi doonaa lacag warqada lacag bixinta waxa ku qoran 30 bisha afraad 2019 waa warqada lacag bixinta fiisahana waxa la bixiyay 14 bisha afraad 2019 mudane gudoomiye waraaqahan been abuurka hadaan la isla ogeyn see waraaq lacag bixintii ay 30 bisha ugu qoran tahay fiiri 30 bisha afraad waraaqay ku qoran tahay fiisihiina la bixiyay 14 bisha afraad intaas waxa xafiis oo ishuubinaya oo saraakiishani ay ka ahaayeen mas'uuliin ay ka ahaayeen sidee bay u martay waxaan rabay commentigaas kaliya inaan ku darsado si meesha ay ka soo galayaan been abuurkan maxkamaddu ay ugu cadaato waa ma hasantahay maxkamaddu xeraale farxaan oo dacwada sii waday baan ku wareejinayaa